of chemistry casharkii afraad ahna casharkeena ugu dambeeyay hadii alla idmo casharkan wuxuu ka kooban yahay contents ku kooban yahay waa intaas kulli waan arkin doonaa anoo kala qaadnay introduction haddaan sameeyno marka ugu horeysa we learn our previous lesson what is mixture lesson-keena hore waxaan ku soo barnay what's mixture and different types of mixture waxaan soo barnay wuxuu yahay mixture iyo noocyada kala duwan ee mixture-ka we learn that mixture two or more bio substance just mix it together waxaan barnay in mixture-ku uu yahay laba ama in ka badan oo walxood oo isu tagay so today we will learn how to separate mixture waxaan baranaynaa how to separate so first hadaan soo baranay inuu mixture-ku yahay walax ka samaysan laba ama in ka badan oo walxaa isu tagay hadda waxaan baranaynaa sidee loo kala saaraa mixture-kan maadaama aan mixture-ka soo sheegnay inuu yahay walax physical ahaan isugu tagtay oo la kala saari karo sidee u kala saari karnaa marka waxaan baranaynaa hababka methodska aan marayno marka aan kala saarayno sidoo kale waxaan baranaynaa method used when we separate mixture methodska aan marayno markaan kala saarayno mixture-ka leen outcome-iska markaan casharkan dhammayno waxaan rabnaa ujeedooyinka inaan gaarno inaan qeexi karno inaan sheegi karno different types used to separate mixtures sidoo kale inaan qeexi karno ereyga filtration inaan qeexi karno ereyga distillation dhammaan methodska ama hababkan inaan mid u qeexi karno wax loo kala saari karo so method of separating mixture methodka koobaad ama kan ugu horeeya waxaan ku dhiganaynaa method la yiraahdo filtration methodka waxa la yiraahdaa filtration waxaan arki doonaa filtration sida loo kala saaro iyo goorta la isticmaalo so filtration used when separating insoluble solid suspended in liquid waxaan filtration isticmaalaynaa markaan insoluble solid aan milmin halkaas waxaan sheegnay in mixture ku yeelo walax la isku daray tusaale ahaan waxaan haysanaa walax ka samaysan insoluble solid aan milmin aan mix and water solid aan ku dhex milmin tusaale ahaan halka waxa noo yaal solid wali aan biyihii ku dhex milmin halka hadii biyo ku jiraan wali biyihii kuma dhex milmin solidkaasi tusaale ahaan aan ka soo qaadnay inuu yahay sand ciid biyihii si fiican uguma milmin markaas baan waxaan isticmaalinaa filtration so filtration we use when we separate insoluble solid from liquid insoluble solid baan waxaan ka saaraynaa from liquid so marka waxaan arkaynaa sidaan u isticmaalayno experiment ahaan isagoo picture aan arkaynaa marka maxaan samaynaynaa waxaan u baahannahay si aan u samayno a parts needed in filtration experiment haddaan rabno inaan filtration experiment samayno qalabkan u baahannahay waxaa ka mid ah beaker baa ka mid ah lab funnel filter paper mixture of water and sand afartaa walax haddaan haysano mixture-keena ka kooban sand and water sidoo kale haddaan haysano saddexdaa qalab oo kale oo ah beaker lab funnel and filter paper waxaan samayn karnaa filtration experiment so filtration is used when separating insoluble solid from liquid tusaale ahaan sand and water waxaan u qaadanaynaa tusaalaheena inuu yahay sand and water mixture-keena inuu ka samaysan yahay biyo iyo ciid halkaa waxaan uga jeednaa for example separating mixture sand and water waxaan kala saaraynaa mixture ah sand and water so mixture-ka markaan kala saarayno bal aan fiirino marka ugu horeysa waxaa la isku qasayaa waxaan soo qaadanaa mixture-keenaas wuxuu ka koobnaa sand and water waxaan ku shubaynaa filter paper-ka waraaqda filter paper-ka waxay awood u leedahay inay dhaafaan wixii liquid dareerayaal ah wixii solid adkayaalna ay ku haraan korkeeda waa waraaq loo isticmaalo inay kala saarto walxaha isku jira oo mixture-ka so picture-ka halka wajeedna wuxuu noo muujinayaa ama waxaan ku arkaynaa in markii lagu shubo walaxdii aan soo qaadano solid-ka ahayd oo aan filter paper-ka ku shubno ay dhaafayaan walxaha intii ah liquids intii adkaana ay harayaan macnaheedu waxa adkaa oo ku dhex jira particleska oo asaaniga waxay ku harayaan waraaqda filter paper-ka dusheeda
liquidiskuna waa maxay muxuu sameynayaa wuu dhaafayaa soo liquidisku marka uu dhaafo halkan buu noogu shumayaa liquidka dareeraheenaas wuxuu noo ahaa water maxaa halkaan noogu haraya water baa halkaa noo dhaafay waraaqda korkeeda oo filter paper korkeedana waxaa noogu haraya walax solid ah oo ah sugar oo ah sand halkaa waxaa noogu haraysa sandigii so waxaan awood u yeelanay hadda inaan kala saarnay walax ahayd isku jirtay one substance mixture ka samaysnaa sand and water waxaan isticmaalnay waraaqda filter paperka ahaa waxaa noo haray waraaqda korkeeda noogu haray solidkii oo sand ah waxaa noo dhaafay waterkii so the liquid that passed through is called filtrate liquidka halkan tagay oo dhaafay waxaan u bixinaynaa filtrate the solid that left behind solidka harayna waxaan u bixinaynaa residue solidka haray oo waraaqda filter paperka dusheeda ku haray waxaan u bixinaynaa residue so halkaa waxaan ku aragnay sida uu dhaco filtration processka la yiraahdo filtration methodkeena labaad ama habkeena labaad waxaan ku arkaynaa hab la yiraahdo evaporation so first we understand what is evaporation and second we see evaporation experiment evaporation muxuu yahay iyo goormaan isticmaalinaa so evaporation waa methodkeena ama habkeena labaad so evaporation is the process separating soluble solid evaporationka waxaan kala saaraynaa soluble solid milmay waxaan ka saaraynaa from liquid waxaan ka saaraynaa dareere halkan evaporation markaan joogno solidku waa solid milmay haddana waxaan soo aragnay filtrationka solid ah insoluble solid aan milmin so solidka milmay maxaa tusaale ahaan noqon kara tusaale ahaan wuxuu noqon karaa salt cusbada haddii lagu daro biyo way milantaa particleska ay ka samaysneed cusbadu ama qurubyadii cusbadu ka samaysneed all of them waxay noqonayaan mixed waxay ku milmayaan biyaha so saan u sameyno experimentigan evaporationka waxaan u baahannahay 3 apparatus so 3 qalab baan u baahannahay evaporating dish Bunsen burner and triple stand haddaan haysano 3 apparatus ama 3 qalab waxaan kala saari karnaa mixture-keena noo ah salt and water so balan aragna sida u dhacayo for example separating mixture of salt and water halka waxa noogu jira picture sawirkeena waxa noogu jira halka marka hore waxa noogu jira mixture-kii oo ka samaysan salt and water wuxuu noogu jira evaporating dish wuxuu noogu jira evaporating dishka waxa noogu jira mixture-keena ahaa salt and water waxaan sameeynaa heating baa ku sameeynaa waa karkarinaynaa markaan karkarino waxa uu baxaya biyihii waxay sameynayaan wax la yiraahdo evaporate way u baxayaan waxa salka noogu haraya some particles of salt particleski saltigana waxay noogu harayaan evaporated dishka salkiisa waxaa noogu haraya saltiga particleskeedii biyo maxay sameynayaan markii la gaaro boiling point-ga ama temperature-ka ay biyuhu ku baxaan kaasoo ah 100 degrees Celsius markii la gaaro dhammaan particleski biyaha waxay ka dhamaanayaan way dhamaanayaan duwadna waxay raacayaan waxay noqonayaan gas way noqonayaan way baxayaan so lastly waxaan ku arkaynaa picture-keena meesha ugu dambaysa waxaan arkaynaa in saltigii nala tusay inay ku hartay remains saltigii inay hartay waterkiina maxay sameeyeen evaporates maxay sameeyeen bax so habkan evaporation la dhaho if we summarize evaporation is used when we separating soluble solid from liquid markaan soluble solid ka saarayno liquid solid milmay markaan rabno inaan ka saarno liquid waxaan isticmaalnaa this method is called evaporation so methodkana saddexaad waxaa la yiraahdaa separating color substance waxaan kala saarnaa walxa leh color leh waxaan isticmaalnaa hab la yiraahdo chromatography habka la yiraahdo chromatography-ga waa maxay used to separate color substance waxaa la isticmaalaa marka la doonayo in la kala saaro walxo color
oo kalarkoodu kalar leh tusaale ahaan black ink waxaan arkaynaa sida black ink loo kala saarayo black ink means waa khad black ah laakiin black ink-ga waxaa laga sameeyay different colors ka indhaheena caadiga kuma arkayna waxaan arkaynaa kaliya khadii black ahayd awalse waxaa laga sameeyay kalar kala duwan markaan doonayna marka inaan aragno kalarada ka samaysneed oo kala saarno waxaan isticmaali lahaa hab la yiraahdo chromatography habkan saan u kala saarno waxaa la isticmaalaa waraaq la yiraahdo chromatography paperka la yiraahdo chromatogram waxaa la yiraahdo chromatogram waraaqdaas waa qayb ka mid ah filter paperka oo loo isticmaalo in lagu kala saaro walxaha kalar kale soo khadeeni aan haysanay oo black ahayd baan waxaan uga shubaynaa at center waxaan ku shubaynaa centerka black khadii black ahayd kadib waxaan ku dhibcinaynaa some water waxaan ku dhibcinaynaa biyahaas waxay sameynayaan inay milaan khadda waxay sameynayaan khaddaas inay milanto kadib waxaan arkaynaa marka colors baa sameysmaya waxaa sameysmaya colorskii ay ka sameysneed waxaa noo sameysmaya three color which is first color wuxuu noqonayaa blue second color wuxuu noqonayaa red colorka ugu dambeeyana wuxuu noqonayaa yellow so first waxaa noo sameysmaya color la yiraahdo blue second waxaa noo sameysmaya color la yiraahdo red colorka ugu dambeeyana wuxuu noqonayaa yellow soo halka waxaan ku kala saarnay hadii black ahayd oo markaan indhaha caadiga ku aragnay madowga ahayd inay ka timid saddex color waxaana noo fududeeyay waraaqdan la yiraahdo chromatogram oo awood u leh inay kala saarto iyo biyihii oo noo milay marka habka waxa la yiraahdaa chromatography waxa loo isticmaalaa in lagu kala saaro walxaha leh colorka habkan ugu dambeeyo afraad waxa la yiraahdaa distillation ku daa two types waxa loo yaqaanaa simple distillation and fractional distillation so simple distillation ka waxa la kala saarayaa walxo leh boiling point isu dhow waxay leeyihiin tusaale ahaan waxa la kala saarayaa markaan joogno simple distillation ka waxaan kala saarnaa walxo leh different boiling point waxa la dhahaa waa heerkulka ay walaxi ku karkarto waxa la yiraahdaa boiling point markaan joogno fractional waxa la kala saarayaa walxo leh boiling point close ama isu dhow waxaan arkaynaa halkaan ku arkaynaa experimentigan waxaa la kala saarayaa halkaa waxa ku jira marka ugu horeysa waxaa noogu jira hal walax oo liquid isku ah laakiinse waa liquid mixture ah tusaale ahaan waxaa noogu jira laba walxo oo la isku daray oo la yiraahdo ethanol is a liquid baan waxaan ku daraynaa water distillation markaan joogno guud ahaan waxa meesha ku jira waa liquids waa dareerayaal laba dareeraa la kala saarayaa labada dareere hadii different boiling point hadii boiling point-gooda isu dhow yahay waxa lagu kala saaraa habka la yiraahdo simple distillation hadii boiling point-gooda uu hadii boiling point-gooda uu kala duwan yahay different uu yahay tusaale ahaan salt and water biyo iyo cusbo salt waxay leedahay boiling point 1645 degree intaas ku baxdaa biyuhuna waxay ku baxaan 100 degree soo aad bay u kala fog yihiin soo aad waxa u jira difference weyn farqi weyn oo dhaxeeya marka waxa la isticmaalaa habka la yiraahdo simple distillation si loo kala saaro hiya ethanol and water ethanol waxay ku baxdaa 78 degree biyuhuna waxay ku baxaan 100 degree soo kuwa isu dhow yihiin close boiling point so hadday leeyihiin close boiling point waxaan la isticmaalaa habka la yiraahdo fractional distillation hadday leeyihiin boiling point kala duwan oo different yana waxaan ku kala saarnaa habka la yiraahdo simple distillation apparatus-ka ama qalabka aan isticmaalaynana waa isku mid salaanka waxaan uga muuqda beaker conical flask bunsen burner condenser qalabkaas oo dhan waa isku mid marka halka waxa u jeednaa marka dabkii lagu shido inay sameynayaan liquids halka ku jira inay karkarayaan kadib markii ay karkaraan waxay sameynayaan boiling point-gooda oo baxa biyaha markii la gaaro labada walxood kan oo baxooda uu sareeyo baa hol maraysa tusaale ahaan halka noogu jiraan ethanol and water biyuhu waxay ku baxaan 100 degree ethanol waxay ku baxaa 78 marka ugu horeysa ethanol baa waxay ku dhacaysaa beakerka ethanol baa horeysa
soo habkaasaan guud ahaan waxaan u bixinaynaa distillation waxaa jira hab kaloo la yiraahdo magnetic separation waa habkeena shanaad waxaa lagu kala saaraa walxaha magnetka magnet baa waxaa lagu kala saaraa laba walxood oo mid magnetka uu soo jiidanayo midna uusan soo jiidanayn so we can separate a mixture contains iron and sulfur waxaan kala saarnaa mixture ka kooban iron and sulfur anagoo isticmaalna strong magnet so iron is extracted out of mixture iron ta waxaan ka soo jiidanaa mixture-ka sulfurna waxay ku haraysaa meesha ku haraysaa tusaale ahaan waxaan haysanaa mixture ka samaysan iron iyo sulfur sulfurtu waa metal waa bir waxay soo jiitaa magnetka waxaan soo qaadanaynaa strong magnet magnetkeena markaan dulkeeno aan aragno sawirka halkeen aan ku aragno sawirkaas halka waxa noogu jira markii hore waxaan isku darnay sulfur iyo iron waxay noo noqdeen mixture-ka ah iron plus sulfur waxaan soo qaadanaa marka magnetkaas markaan soo qaadano magnetku wuxuu noo soo jeedayaa metalka birta waxaa meesha ku haraysa marka sulfurta wuxuu noo soo jeedayaa iron oo metal ah waxaa meesha noogu haraysa sulfur soo habkaana la yiraahdo magnetic separation waxaa la isticmaalaa strong magnet marka la kala saarayo walax metal ah oo bir ah iyo another substance walax kale oo powder ah budo marka sulfurku hadda waxay noo tahay budo iron-tuna hadda waxay noo tahay metal marka habkaas waxa la dhahaa magnetic separation guud ahaan waxaan halka uga baxaynaa methodska ama hababka loo kala saaro mixture-ka hababka loo kala saaro mixture-ka waxaan soo qaadanay 5 hab oo ah filtration evaporation distillation chromatography and magnetic separation guud ahaan waxaan kala saaraynaa markaan doonayno inaan kala saarno mixtures halkaas buu maanta noo weegyahay casharkeeni sidoo kale waxaan oo dhamaaday chapterkeeni koobaad kalluunka cuna lulimada kaneecada